بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. waxaan insha Allah halkan ka gelinaa darsi ku saabsan salaada iyo ka tagitaankeeda iyo inay kamid tahay dambiyada waaweyn. الله سبحانه وتعالى وحوله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلغون غيا. ويقول سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. ayadahaas baan kor istaagaynaa marka hore kadib baan axaadiista ku soo aroortay arrinkaasi yaan u yaraha gudbi doonaa kor istaagi doonaa iyagana. Allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay waxaa bedelay dadkii wan wanaagsanaa kuwo kale oo waxaa bedelay salaada dayacay oo raacay shahwadooda raacay waxayna geli doonaan maalinka qiyaamo waadiga jahanname ee qayi la yiraahdo. waa waadi waxaa la yiri markii laga hadlahayo aad iyo aad buuraha hadii maartay la mariyo ama lagu rido ay dhalaalahayaan baa la yiri waadigaas isaga nacuudu billahi ilaahay baan ka magan galaynaa. ibn Abbas radiyallahu anhu oo ahaa xabrul umma markuu fasirayay aayadan iyada wuxuu ku sheegay inaysan ahayn kuwa salaada ka tagay بالكلية معنا صلاة كوا كتجي إنسان هين أيهين كوا صلاة دب دقي وقت جادين دافيي إن يهين بكشاجة. سعيد بن المصيب أو إمام التابعين يسجن وحكوشاجي إن يهين كوا صلاة الظهر إلى عصر كودي بدقة كوا عصر كان إلى مغرب كودي بدقة مغرب كان إلى عشاء كودي بدقة صلاة الصبح إلى قرحة كسب بحثته كذا. إلهي سبحانه وتعالى هينوفض زي لمانتين aad iyo aad baad u garan kartaa ee salaada waqtigeedii la dhaafiyay ee meesha ay taagan tahay. aayada labaad ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu iyadana fawaylu lilmusalliin wuxuu tilmaamay kuwii tukanayay waxa u sugnaaday waadi baa u sugnaaday naareed. fawaylun ay waadi naareed oo waadi cadaab ayaa u sugnaaday lilmusalliin kuwii tukanayay الذين كواسهم يقوم عن صلاتهم صلاة وذا ساهون hilmaama hayay salaadoodii dib dhiga hayay salaadoodii fudaydsan hayay tafaasiir badan bay leedahay. marka salaadii ood fudaydsatay salaadii ood hilmaantay mar walba aad hilmaamayso ood istilmaansiinayso aad fudaydsanayso oo cadamadeedii iyo weynigeedii aad garan weysay maxaad ku mutaysatay iyadana waadi naareed baa iyadana ilaahay subxaanahu wa tacaala u yaboohay. aayaddaas iyada ah wuxuu leeyahay Sacd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu waxaan weydiiyay buu rasuulka calayhi salaatu wasalaam alladina hum can salaatihim saahuun kuwan salaadooda hilmaamahayay maxay yihiin kuwaas iyaga qaala wuxuu yidhi huwa taakhiiru lwaqti salaada waqtigeedii oo laga dibdhigo weeyaan waqtigeedii oo laga dibdhigo kastoo xadiiskaasi dacfi lagu maartay uu ku tilmaamahayo kaatibku ama sheekh kitaabka iskale oo maartay waxaynayo haddana waxa ayadahay nusuusta kaleento ayaa maartay magaranaysa isku macno noqonayaan ay soo dhaafnay ay isku mid yihiin. marka taakhiru salaat aan waqtiha waa waxa ay markaas iyada lagu mutaysanayo waadiga cadaabka ah ama waadigaas naareed ee qayiga ah ama kan kale ee maartay ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku sheegay suuratul maa'un ku sheegay. marka waadigaasi jahannamo ayuu ku jiraa waa waadi jahannamo ku yaalo oo aad iyo aad u maartay u daran cadaabkiisu daran yahay looguna talagalay dadka fudaydsada salaada fudaydsada ee waqtigeedana ka dib dhiga ee aan ka toobad keenin arrinkaas isaga ah ee aan ka shalaytoonin waxa ay sameeyeen sidaasna ku dhintay. aayadda saddexaad Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi laa tulhikum amwaalukum kuwa iimaanka laga helayo yaysan idin mashquulinin maalkiina
أولادين يسيد مشغولين يعني مشغولين عن ذكر الله إله ذكر سيدك مشغولين ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون كواسي وحين نقولنا يكون خساري أرنتاس إيضا مالك إن تكون مشغول شو بيسنس وعدتك وح أبدنا مشغولية وح أبدنا مشغولية وأرنكاس سجاويا وح مشغولية قفك معناها أو مشغولية بقرتني ماذا إيه مدحتني ماذا مشغول سا وح قفك مشغولية أولاد يرهربا مشغولية وحياة فربنا بسوق لي كرا سيد العلماء كفسرين أيضا يضع المراد بذكر الله مش أيضا إله سبحانه وتعالى وقلت المامي يسن مالكيني أولادين إذا كان مشغولين ذكر إلهي وحللوا كذا بالي الصلوات الخمس شنت صلاتات بالولوا كذا بالي قفك مركا كون مشغولة مالكيسة بيع يشركوا مشغولة معيشة ينور هذه كون مشغولة ضيعة صلاتي أولادي سكون مشغولة ضيعة صلاتي وقت جدينا ما ارتدى فيها وهو نقول هي فأولئك هم الخاسرون كوا خسارة إلهي سبحانه وتعالى قلت لهم نبي عليه الصلاة والسلام أحاديث وانو من دورنا آيات لبعض ما كنت درينا إلهي وكجا ورمي أصحاب الجحيم كوا النار تجلهي مركز إلهي وحوليه هاي ورنار تمحى قلية ما سلككم في سقر مركز إيضا لو يدين هيو مركز وحي كتواب هيان قالوا لم نكن من المسلين ما نتكنشرين نار تمحى قلية قالوا لم نكن من المسلين ولم نكن نطعم المسكين مساكين ما نقول شرين وكنا نخوض مع الخائدين وحنا هن قوتهم بضا معناها دي ما قرنا ساي وحا إلهي سبحانه وتعالى هالي كاهن مع الخائدين قوتهم بدل ما عود هانتري وكنا نكذب بيوم الدين مالك جزها أيان بينين شري مالك قيامة حتى أتانا اليقين أنت لو يمد معناها يقينتي أنت نوتمد قيريدي أنت وتمد فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن تذكرة معرضين ayadaas iyadana waxay ka warramaysay dadka naarta galay ayaan dhaweytay waxaan arkahayay qof intuu macnaha waxa weeyaan ma garanaysaa la keenay masaajid oo ma garanaysaa qofkii isaga ahaa markii masaajidka la keenay la yiri ehelkiisa loo yeeray la yiri ma tukan jiray maya kadibna ay dadkii masaajidka dhaheen ku tukan mayno oo arrintaas iyada ahna ay miidiyaha hadda ku jirta ayaantan iyada wax badanna goobjoog baan u soo ahayn arrimaha noocaas oo kale inta ah ma garanaysaa way dhacday marka salaada marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka yidhi awalu maa yuxaasabu alcabdu ayuu yidhi nabiga calayhi waxa la xisaabiya qofka waxa ugu horreeya maalinka qiyaamo macnaha yowma alqiyaama weeyaan min camali camalkiisa asalaad wey qofka wax la xisaabiya waxa ugu horreeya camalkiisa maalinkaas qiyaamo waa salaada wey hadday suubanaato fa in salaxat qad aflaxa waa liibaanay wa anjaxa waana guulaystay wa in naqasat hadday nusqaan ku timaadana faqad khaaba waa khasira waa hoogay oo waa khasaaray markaas isaga walaalayaal macnaha arrinkaas iyada ahna waa waxa ugu horreeya la xisaabiyo wuxuuna tusinayaa waxa ugu horreeya la xisaabiyo inuu camalkaagu yahay salaad inay tahay nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo yidhi xadiis saxiix bukhaari soo saaray xadiidkaa hore shawaahid buu leeyahay tirmadii baan soo saaraya laakiin xadiiskan labaad waxaa weeyaan bukhaarigu ku sugan yahay man faatatu salaatu alcasri xabita camalu salaada casarka qofkii ka tagto camalkiisi waa buray salaada casarka xaafidu cala asalawaat wasalaati alwusطaa waqumu lilahi qaanitin bilah yidhi macnaha waxaad xifdisaan salaadaha xifdiya salaatu alwusطaa baa lagu cadfay waxaa la yidhi war salaadan xifdiya macnaha waxa weeyaan si gooni ah baa loo sheegay oo culimmadu ay ku tilmaameen salaatu casr inay tahay marka halkan xadiisku muxuu sheegayaa qofkay ka tagto salaada casarka camalkiisa waa buray waxa weeyaan waa xilliyada acmaasha la rafciyo xadiis kale nabiga calayhi salaatu wasalaam isaguna bayhaqi soo saaray iyo axmed soo saarayaan رجالكيسونا مارتي رجال صحيح ورجال أحمد مارتي رجال صحيح وليه إلا أنه مكحولا لم يسمع من أم أيمن حديث كسجا ورنا على سجا وكير كير وحسين لكن متابعات مارتي وليه إسناد كسوله لا بأس بإسناده وحديث كأبو كتر ما هيو حديث كسجا أنا بحوليه من تركت صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله سبحانه وتعالى ذمة الله
معناها waxa weeyaan ilaahay dimadiisa waxay bari bay ka noqotay qofka hadii uu maxaa la yiri uu fiirso hadalkaasi toos kasb uga tagay salaadii wareer salaad ma tukatid ya tabar uma hayo sida dad badan laga sheegay ya xoog aan salaad ku tukada ma hayo ya iyo idinka muslimiin orda tukada idinku oo kalantiyo dadka qaarkood waxyaabaha qaarkood kalimaadka ka soo yeerisay oo kale iyo maartay macnaha waxa weeye kalimaad jeesa ya macnaha mararka qaarkood kale kugu oranayo qofka salaada kaga tagay si kas uga tago faqad bariyat min zimatullah ilaahi subhanahu wa ta'ala aayadiisa iyo ilaalintiisa iyo dhowrtaankiisa waa markaas isaga waa ka bari noqotay way nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri waxa la amray an uqatil an-nas dadka inaan la diriro hatta yaqulu la ilaha illa allah inta ilaahi ka waxidaan oo ilaahi ka qiraan oo yuqiimu salaata salaadan ay ogaan oo yutu zakaat zakadan ay bixiyaan saddexdaas markii la israaciyay tawxiidka kadib salaadii iyo zakadii iyo tawxiidka markii la israaciyay fa idha fa'alu dhalika asabu minni hadda arrinka sameeyaan waxay ilaaliyeen dimaa'ahum wa amwaalahum dhiigoodii iyo maalkooda ay ilaaliyeen illa bihaqqiha tawxiidka kalimatu la ilaha illa xaqeedii mooyeen wa xisaabahumna ala allah macna halkan iyada rasuulku wuxuu cadeeyay qofkii hadii uu salaadii ka tago oo uu zakadii ka tago ma garanaysaa inuu la dagaalamayo waana dhacday Abu Bakar dadkii zakada diiday inuu la dagaalamay maanicu zakat inuu la dagaalamo dagaal la galay way dhacday arrintaas iyada nabiga wuxuu yiri kaleey salaatu wasalaam xadiis sanadkiisu uu jeeyid yahay ومارت أحمد صو صار هيو رجال كسنة ثقات أيهين وحويان من حافظ أو من حافظ قفك حفظية عليها صلاة كانت له نورا من حافظ قفك حفظية هي وصلاة حفظية عليها كانت له نورا نور بأو نغنسا نور وأفتين وبرهانا حجة ونغنسا ونجاة يوم القيامة مالك القيامة وحو نقونيسا بدبادة ونقونيسا ومن لم يحافظ عليها قف كان صلاة حفظين صوماها لم تكن له نورا ومن نقونيسو ولا برهانا حجة ومن نقونيسو ولا نجاة يوم القيامة ومن نقونيسو وكان يوم القيامة وحو نقونيا مع فرعون وقارون اللبا وهامان صدح وأبي بن خلف أفرتاس براعيا أيا مارتي معناها النبي عليه الصلاة والسلام ليه arrinka isaga culimada qaarkood waxay ku sheegeen marka inma yuhsaru tariku salaat bayna ma'a haula ila arba'ati afartaas aan la sheegay haduu yahay fircawn iyo haman iyo qaarun iyo ibn khalaf afartaas maxaa si goona loogu sheegay bal waxa la yiri inma yashtagilu an salati bimali qofku wuxuu kaga mashquula salaada maalku kaga mashquula aw bimulkihi boqortinimadu kaga mashquula iyo madaxtinimo aw bi wasaaratihi inuu maartay wasaaradihiisa iyo maartay howlihiisa kale intuu kaga mashquulay dawladda maartay maamulkeedii aw amase bi tijaarati ganacsigiisa kaga mashquula afartaasi marka haduu kaga mashquulo maalkiisa haduu ka mashquulo waxa lala soo xashrinaya waxa lala soo kulminaya qaaruun hadii uu kaga mashquulo boqortinimada fircoon baa lala soo kulminaya hadii wasaaradda kaga mashquulana haamaan baa lala soo kulminaya haduu ganacsi kaga mashquulana ubay ibn khalaf baa lala soo kulminaya kuwaas lala soo xashrinaya وانا حاويان وكفار مكة ويا مارتي نكاس إسقى أبي من خلفنا يوها كواسنا كوي أمدي كوري أحيان إخواني صلاة إن وقت بيدلو تكذو صلاة إن لإلاليو شنت الصلاة وحيابها واجبات كوه الرئي قفك مسلم كالا قرب هذا مسلم تاهي إسلام ماذا وحلو قرتا صلاة دلو قرتا الصلاة لوقتها إن لا تكذو أيام مركل لو باهيه رسولك عليه الصلاة والسلام جاء رجل بالي نبأ ويمد وفرت حديث كان البيهقي بورنا هي بإسناد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بويمد رسولك مركو يمد ولو سند كيس مارت ضعف وكسو جاي حديث كان سجع لكنه هو حوي واستدلال سننا ببعض فضائش وكهالله هيو آدي معاني ذي كلامته هو صحيحة بوافقية وحوي جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله أعماشك هي إلهي لو قلت عليه أكتيس إسلامك حقيس كي لو قلت عليه الصلاة الوقت يا أبو رسول كبير ومن ترك صلاة فلا دين له صلاة قفك كتغانا دين
ملحن والصلاة عماد الدين صلاتنا وتيركا دينتا أي نقولنا صلاة هي وتيركا دينتا وي الصلاة عماد الدين أحاديث بدن أيها كوسو أروريسا أرنكا إساق أنا كهالديسا waxaan rabnaa marka xalaqada qaybta koobaad in aan ku soo gabagabayno dadku inay salaada ay adkeeyaan man laqiya allaha wahuwa mudaycu salaat lam yacbi illahu shayan min xasanaatihi ay maa yafcalu wamaa yasnacu bixasanaatihi ida kaana mudayican lisalaat qofka ilaahay la kulma isagoo salaada dayacay ilaahay uma abayeelahay حسناتك يوح ولا يمت مرة هذا صلاة يعضي أعماش هذا كله حبك يوم مله وأنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام قفك وحلا حسابي وحور صلاة هدي وأنا سنتنا صلاة وحي عمل كيسو كرنا وأنا سنة حديث صلاة دي سو مارت حماتنا عمل كيسو كرنا الله في رم ما هي مركو قفك مركو قبر قالوا حالي يري معنت وحور صلاة الله في رم قبر قاس أور مارت قيامه وقفك مارت هل كاسو كسب بالله مركو صلاة هديعين صلاة مارتي adkayso man taraka salaata faqad kafara wa meeshan taala salaada qofka ka taga waa kufriyay waa gaaloobay lamaba maartay qubuurtii baa maartay in lagu daro yaa akhay muxtar ka targalaya maartay qofkaas isaga in lagu tukado maartay waad arkaysaa in maartay ummadda islaamka istaagtay dadkii salaadaha maartay ka tagayay ikhwaani marka waxa weeyaan intaas baan qodobka hore ku soo gabagabeynaya barakallahu fiikum sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina muhammad